iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada Baydhabo ay ka socdeen dibadbaxyo ka dhashay xarigii lagula kacay Sheekh Muqtaar Rabow Cali Abu Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo waxa ay ku soo xirxireen dhalinyaro tiro badan kuwaas oo la xiriirinayo inay ka dambeeyeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Baydhabo inta ay socdeen howlgaladan ciidamada waxa ku geeriyooday ilaa 3 ruux halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Baay Cali Wardheer Cabdiraxmaan waxa ay si wada jir ah u direen baaq ku aadan shacabka inay dejiyaan xaaladda magaalada Baydhabo طبعا خمسين ما يبغى ما تشيله تذكر ما يدور ورا مظاهرة ما يبغى سكر ولا بيوجد ما يبغى يا كده وجرم صادقته مركب تكمل شغلنا إن شاء الله هو يقول كارماني اللي بحال يدجي هذا اللي بقولي والله لا ولا جم يقول لك حاط ما هو تكون بدك بدرو تقول في الرد ولا ما يقول لك حاط ما يبغى يا نقدين لكن يا اللي بيدور خاص سمو تعرفوا هاي ما في لهم طبعا شو اللي موجي يوم ظهرات أنا تبي شيء مديري والمودي يقبل المودي والوالي باقي التغيير اللي فضاي ديري الدنيا اللي شاغل فضاي ولا شاغل ولا مرتبط عن الشاغل ولا كيجوا ما كمان تلو ولا هاي يا مختار من مظاهرات هاي بيرك اللي بيقولوا يا هذا لأن مقابل سيني مقابل أصلا معمول مقابل لا كسب مسؤول مقابل فيقول هذا سنة بيرك بيروح يجيك هو ساعدوه حتى هالدرير نولل عادل هني كنانك مطور هذي بيو نفتي ذلك شوي كليات بيلت أونا سوده سينكاي مقولش يا جسان أونا بيلي اللي مده التليها قيبته بوليسكا قبل كباي مهد عبد الرحمن آذن يتليها قيبته لحظنات عيدنك حوجة الصومالية جنرال إبراهيم يرو وحيسي وذجر شعبك وجهدين حقيقة أمانك مقالة Baydhabo يقول تصالح وكدقي دبت بحيضة أنت أي سعودين سامين أي كويشين إذا صعدك ضدك يو جديدك dhibaatada dhacday taageerada la dubay akhyaar iyo dad badan baa maalmahan dhan u direynay si qalaasada loo joojiyo wixii waxba waa ka suuroob waayeen saaka ciidamada ayaa tilaabo qaaday oo lagu amray inay nabadgelyadii gacanta ka baxday soo celiyaan gacanta dawladda ku soo celiyaan waa la shaqeeyay wadooyinkii waa la furay dadka dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa wasiiradii Koonfur Galbeed iyo ciidanka booliiska iyo militariga iyo dhammaan niisa hay'adaha amniga ee dawladda iskaashanaya arrinka ayada waa fulay shaqadaasna waa la qabtay wixii harana waa la israacin doonaa wax dhibaato ah dhacayna ma jiraan ciyaalkiina waa la soo qabqabtay oo xabsigay ka buuxaan wixii kale dhiman oo weli rabsho wadana waa ku soo magaalada ka abuuran la joojiyo wax walba laga fiiriyo dhinaca fiican in laga arko oo aanay waxba soo kordhinaynin dhibaatooyinka hadda socda laamigii ayaa la gubay magaalada bilacdeedii oo dhan waa baabacday ganacsigii dhibaatooyin fara badan magaalada ka jira shacabka waxaan ka codsanaynaa oo kula talinaynaa oo ku waaninaynaa inay joojiyaan dhibaatooyinka magaalada ka jira wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay ayaa shacabka ku booriyay inay ciidanka ammaanka kala shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka iyo in la dejiyo xaaladda magaalada Baydhabo barnaamijka ummadda Soomaaliyeed dhamaantay inay deganaan muujiyaan gaar ahaan reer Koonfur Galbeed dadaalay diwal tabadaas inay si wanaag iyo inay halkaasnimo waliya tabadaas ka sheegto faa'iido ma sheena inay buuq la soo inay goomo la gubo dukaamada bal qeysad shidil abuur dadno dhimadan wal faa'iido yeeshana samile wala in ku digaanay umada inayo talaabooyinka macaaso iyo qaadaan wala in mahadnagay dhamaan saraakiisha amniga oo ku shaqeeyay nabadgelyada walillahi eediyada ama sitiin iyo awli unturaaw shacabsho wala unturaay shacabka bilaaqiiq ogtiin beledkum wala yaalo xubbe wala ciidan ay roog ogtiin lanshiid geema beledkum isku gigimo kor halka aad warbixintaasi kala socoteen waa Galer Media fadlan si aad ula socoto wararkeena dambe subscribe saar channelka mahadsanid